baa waxaan saaka u soo kacay iyagu wali hadlaya walaalayaal nasta waxaan dhiiga madaxa idinka furmi karo wallahi social media ana dagaalo badan ku soo galay I have experience i waraysta waliga allaha hurdadaada ha u seegin hatta hadii mic lagu haysto drop the mic sleep naag shalay galab daaqada cando saarnay xalay oo dhan life ku jirtay oo caytamayso dambi daldalaysay haddana waxaan soo kacay oo xamdi kalgac goorma seexatay joogta dhuusada ma seexatid miyaa sleep walaalay sidii intaad tartartid marka afar habeen oo straight soo jeedid codkayga saa u koobiyeynaysa waa daashay wax walba sameeyay ku soconaysa Soomaali waa indha iyo dhagay leeyihiin Soomaali maxamed way is wada taqaanaa marka walaalay macaan iska seexo waa daashay ana had ku sheegay joker raggi wax ka qaadi waay macaadalaahi adigoo dumar oo haddana dumar ugu liito xataa afka hore iyo afka dambe aan fariin ku lahayn qabiilkaaga ka baxsan waay dadkaaga ka baxsan waay reesaaq may ku haysta oo culiyahan may ku haysta oo jidwaaq may ku haysta oo ree Cabdulla wiilashooda may ku qabsado yiri caadada ku dhacdo la wada ogaa ba wax arta hadda jokerna isku soo dhirris naxada meesha ku dhiman stress niyo kugu dhicin codadkaaga ninka u duuduubo lacagaaga yar yar ka qaado labadaada cunuga wardayda ku korso laakiin se aniga ay soo gelin time ma hayo doorashan ku jira dani baa sharaxan adeerkay baa aniga sharaxan aniga teeda kaleeto in la ii hadlaan jeclahay oo aan dhaho walaalayaal oo macaaniyaalo fariinta iga gaarsiiyo fariinteedana ku soo gaartay fariintii ani aan ku waday walaashay xamdi baa ku soo gaarsiisay intaan ku dhihi lahaa xamdi baa kuugu soo dhiibay ka dhigis xamdi insha Allah kaas xamdi baa aniga saaxiibada oo kula hadlaysa أنا أنت موتي وأحمر سنة ساء فريستا. غدا بغدا لما تشوف نينكن اللي بحنيوتك أي ورا. والله الحمد لله ما شاء الله أد بقفي عنها أنا برواقو وأسكفي عنها أنا وأسك ضدك ما أكتهاي فيريا بين آدم إيه ما عرفت إيه ولا بنوع. أي واحد شرا ربايات أهو جورج لوجو هاي سنكر إيه واحد دهان مريكانكو إيه ضدك يوروبيان كواحد دهان وايل دوغ واحد دهان وايل دوغ هذا جورج صاغ شتو مريو كعنايا وحو كعنايا دركا عنتدا عادي وفي الجير كجرتو كعنايا عرورتو كقنينيا ما فهمتي marka wax walba la sameeyay waxyaabo badan la isku dayay waa u suurtagal weysan Naciimo qaawan baahayna u suurtagal weysan Naciimo sax sameynaysa hayna waa u suurtagal weysan wixii oo dhan waa ii keen way naag naasa dheer mid hoos madow mid kor madow wax walba way keeneen wixii dhan ka u suurtagal waayeen Naciimo ba waxa la soo sameeyay naag warday oo gacan ku rimiso aniga iyo codeg naagti baa meeshaan la keenay dhowr bari baan qayqaylisay daaqadiisay kortay daaqadii basra buufsan bay kortay way ka qayqaylisay dadkii oo dhan baa ani emaileyay shocking iyo disaster in baa dhacay wala soo waxa la yiri jokerey daaqada maxaa ku saaray cando waan baxay waxaan raadiyay dad yaqaan waxa la yiri naagta ayuuni baa la dhahaa Sadruddin wiilkii la dhihi jiray oo xafsa kuweyn naagta hotelka la deganeedo Nairobi aadaysa waaya la dhahay informationkeeda dhanaa soo helay markii la dhahay gabadhaas waay waxaan ku yiri oo naagti maaskiga xirneedo Sadruddin ku dhageysa supermarketka dhexdiisa saas ugu deganeed waay markii la dhahay waan warday laba cunugo wardayna way leedahay ogaadeen bay sheegataa hadda ogaadeen waxay u soo sheegateen wiilkaas markuu de guursan waayo jiq uga dhigay bay ogaadeen intay sheegatay ogaadeen isku dirtaa okay bye waa iska aamusay hee ina horta anagu horta saan ku aaminsanahay nin baa noo tahay kowde صح boqol rag isku jira tahay thank you kowde marka ina canaasirta iyo ciyaalada iyo isku soo dhistido yani ad la soo yani hadaladooda qad qaayatid ma fiicna dad nin waa baa ani ma bacaynay cidna qisaan ka sheekaynaya soo for wankeedii markaan imika lay keenay ayay sii dayn weyday meegala way isku ilaalinaysay anigu qabiil ma aayin waxay ka dhigaysay inaan beesha ma garanaysaa ogaadeen aayay
wixii giftiga ii soo dirayay hablihii ogaadeen bay ahaayeen wiilashii ogaadeen bay ahaayeen iyada wixii ilaalinayay laba qofan anigu miidiyaha ka ciilay qadiija iyo wiilka jibcaalow qorayaho beesha isaaqa labadaa qofna anigu qabiildan uma caayayo waa qodobka koowaad waxaan u mahad celinayaan kaga faa'iidaysanaya maadaama leefkii naga damay beesha daarood tahawiye ta isaaq hidig iyo marifle madhibaan cid kaste hoo iyo hiil iyo comity iyo sheer iyo leeg shaashada igu muujiyey labadii saacadood aan hadlayay iyo maxaa la dhahaa saacadii hore 3 saacadood baan qaatay anigu waa ku mahadsantihiin baan leeyahay sharaf korkiina ha markii hore waxay qabsatay waxay tiri ku soco adiga ma ogtaa dadka ku socon kuro adigoo 20 daqiiqo hadashay waxay hadashay 5 daqiiqo wax ka yar way dhigtay ma ogta waan qabsaday waan kaga hurgufsiiyey saacad wax leeg way qabsatay 20 daqiiqo hadashay 20 daqiiqo markay marse way neefturiyay way dhigtay waan qabtay laba dhulka la gaaday laba waxaan ku iri mafaca afkayga ka soo dhacay aadan maleeyay codadkii cadeymihii aan keenay wax kasta mar allaali mar adduunyadan codadka shiday isku xaartaa hadda waxa weeye 3 koobi baa tee waxaan shidaa iyadoo anigu niciima ma ihi gabadh sidaasaan ahay waxaan daayadii haddana ay taagan tahay marka almuhiim inigiyo wada hadlayaan daaro maamo faraankan inay ku dhex jirto wax kastoo caddeynaa markan u keenay shaashadina koobiray midhana qabsatay hodaniyo wallaahi ilaahay isheeda ha iga duwo waa ku raaxaystay markaan hadlayaanu waan raaxaystaa si toosan maanta u kufsaday tiktoknaana ka saaray aniga waa raadiyey waxaa u raadiyey abay waa kula raadinay warka iga dhageyso inaan dadka jaana siinan sababta u raadiyay xamdiye waxay ahayd ma waxaan hadda u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa taageersan naagtaas wankeedii waa la keena iyadoo qaawan oo suuradeedu qaawan yihiin Allahu akbar wariyo reer Canada imtixaan baatiin niyo reer Canada iyo dadka iyadiyo qaawan naasaheedii hota ma buurno naag buuran ma waa naag caata ah hadaba faanti waxaan soo wadnaa ka daran xamdoy anaa ku haya ayadoo nin ku dhagan anaa ku haya kuridila soo tuman jirtay way qoftaan sharmuubta ah dadka aadan macna ku mashquulsan inta koobiyeynayso ayadu karti ha yeelato aad waxa kaloo la keenay caruurteeda warday inay yihiin iyaduna ay warday tahay ayna daaro dhan ba ahayd iska badaa ogaadeen iyo reer kale ku faanayse waxa la keenay ninkii iyadu la raaxaysanaysa ee Nasruddin ee reer maxaa la dhahaa Nairobi inankii ogaadeen ilaahay quruxda siiyay ay isku dhajinaysa naagti maskarada xidhneed ee meesha supermarket la joogtay inay dhac la keena waxa la keenay inuu 2 bilood guri ku haystay bilaa mahar la'aan markii dambana sanka intuu ka qabsaday yarina bax ay ku soo noqotay Canada hadda waxa nolosha ka dhacsan weeyaan club house iyo maxaa la dhahaayay waxa looga yaqaanay sumayo ma yahay sumayo siigo walaal waxa saasa anu waan sheegay markiiba ogaadan inayna ku jirin hablahooda habla xishooda halgamayaal ah dadka ragooda dhinac istaagay inay yihiin noocan ayna ka dhalan copyright inay tahay ma maqlaysaa waan sheegay ragga daarood ama ragga wax kasta waa ku bahdilay waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad igula fahanteen maanta xamdiye cod ay leedahay yaala wiilasha reer Cabdulle caadada ku dhacda waa naaga ani ila mid xamdiye cod ay leedahay wuxuu yaalaa TikTok waa ku soo raadinaya qofkii arkana ha iisoo waa marka codadkan daaraya beesha ogaadeen bay fakax taxtiri mid kale qofka bini aadanka markuu ilaahay burji siiyo walaalo waxaad ku garanaysaa anu markaan hadlayay waxa ay daawanayay 1,100 1,200 1,300 meegiba way dhex seexata miyay ooyaysaa miyay sheekaynaysaa miyay isla sheekaysanaysaa way isku dhex yaacad hooyaday baa sidan igu tiri keer baa sidan igu tiri hawiyihii bay haddana aaday hawiyaha waa kan anigu ka dhashan ku faaniyay waa isii faanisay hadda eeg copyright waxaad ku ogaanaysaa kelmadan anigu dhahay iga daba dhahaysa waxay ku hadlaysaa meel aan u dhaqaaqay ma qoslay hadal aan markasta ku laan dheereen jirayo naaga wajiga picture baa laga saaraa markii lagu tagay xamdiye aan dhahay way ku adeegsato waa qosl mugta gabadha xataa hadaladeedu way koobiyeysa laan dheera ahay ku tahay inaan suuxan hadalladii wayna daawanaysaa koleybe waxay tiri midgaan baa ta waa lagu guursadaa maba ogaba gurigan anoo 18 jira lagu guursaday hadda anoo 30 jira inaan dhex fadhiyo ninkii ugu horreeyay guursaday inaan weli la joogo maba ogaba marka waxyaabihii beentii sheegaysa waxa kamid ah iga yaabiyay markii meega qaadanaysa ko waxay tir kuma aqaano waxaan maqalgacal baa qoran mise xamdi oo qoran ilaa YouTube-kayga ilaa meega gadimka hablaha iskugu qabano oo maxaa la dhahay tartanka ilaa club house-na way sheegtay inay taqaano obsess way gabadhan obsess fan aniga horta waxaan dhigi karaa Soomaali waxay sheegayaa hadda ka hor gabadha la dhahayo ma aragtay xamdiye Kylie Jenner gabadha la dhahayo oo Mareykanka ah waxa waaye celebrity way gabadhaas
hadda ka hor ma ogtahay nin faankeeda ahaa dil rabay ma ogtahay kawuu ka siin rabay intuu bistoolad soo gatay gabadhaas aniga obsess ay igu tahay taageeray ii ahayd waa hayaa codkeeda anaa idiin shidaa iyadoo idhahaysa Naciimo Joker waa ku taageeraa adduunkan kuugu jeclahay gabadhaas taageero badan ay ii ahayd wax badan ay taageeraysay haddana stress bay qaaday obsess ay igu noqotay inay dishaaba laga yaabaaba because qofka markuu saas jaceelkaaga ka bato naceebu jaceelka isku bedelaa marka gabadhan jaceelka ii qabtay naceebu hadda isku isaga kee digdigaysa horta anoo inta taagan bay iska dhigtay oo hadaladeedu way Naciimo yaa gale warka la soo siiyay waxa iigu dhex jira wararka faarka ah la soo qabtay inay ilka casa jeclayd ay soo wici jirtay habeen iyo maalin baraadin jirtay adiga aad ka balogtay maxaa ka jira waa 441 kale soo siiyay WhatsApp ban ka ku hadlayay inta mood anigu waxaan ma dhageysanayay mood markan kale kalan WhatsApp ka hadlayay laan dheeranimo no cadda inaad raatay sheekada jirto mise waa laga been sheegaya inay ninka indhaha u ay hadda ma rabi inaa meeshaan faar ay noqonaysaaye faar way qosolka macalina kor kala soco telefonka qays aan dadka ma baloogareeye asaga iskala wiciisay xamdiye de faar ba igu soo qabatay maxaa sameeyaa anigoo fadhiye oo meesha ku soo hor fadhiye xamdiye TikTok-ga waxa la keenay codadkeeda iyadoo ameelis inay hurdo waxay ku hadlayso horta ani markay ay meega qabsatay baa meesha ka baxay wax ay ku hadlayso waa garan waay ma fahanay habeenkii wiya badnaa waxay habeenkii ii sheeg ay ayadoo ku jirta live intay saas u dhaqaaqday ay yartay mid kale oo la socotaa jirta ayadana ayaan la dhahaayo ayaan waa aqaanaa ayaan waxaan aqaanay farxii iskoor markay ahayd aqaanay ee ka sheekeyn jirtay waxyaabaha galmada iyo intay siis cadeen ka hor ayaan si fiican u aqaanaa ayaan ku dheeraada ma rabo aniga dumaashiday waaye markay farxii iskoor ahayd oo Facebook waxaas ka sheekeyn jirtay de gabar yar ay ahayd daadeeda markaas ma weynay markaas ay tahriib ka soo gashay oo wixii magafo ku soo aragtay un bay wixii nooga sameyn jirtay videoyo Facebook wax xasuustaan farxii iskoor qofkii xasuusta gabar yar oo ka sheekeyn jirtay nimankii naagaha iyo waxaas iyo waxa afkayga soo mari karin bay ahayd ayaan hadda ayaan ku weynay la baxday intay joogtaa marka farxii iskoor aniga ma rabo ilaa inta laga soo ogaanayo because aniga weligii dumaashiyaashii kuma xadgudbin haddana inaan ku xadgudba diyaaru meeyay reerka aad baa u jeclahay waana i qadariyaan qofka hadduu ku qadariyana waa la qadariyaan beentaya ma rabo inaan kugu xadgudbo laakiin farxii iskoor aa lagu dhihi jiray waa kaa saaray niman ogaadeenaan ku garaacay dadkan waa la yaqaanaa maya wiilalo aa ku xanaaqay ogaadeena waa laga xiray social media dhan xataa Facebook looma ogolaan jirin hadda dhow TikTok markuu soo baxay ay TikTok soo furatay farxii iskoor ayadoo is cadaysay hadda ka horna inaa xasuusin ma aqaani Facebookga maray ku soo laabatay yaa jirtay maalin ayadoo dhaansi garaynaysa ayadana saan oo kale sida tan ku dhacday ay ku dhacday ma aqaan gabdhaha waxa dabada kaga dhacay Naciimo ina adeer wallahi waa lagu habsaamay adoo gabar ah baa nin kugu habsaamay reer dhan kugu habsaamay oniyo waxa tahay sonkor baa kugu yaacday garamaayo anigu laan dheernima halka ku dhigay oo kartiba halka ku dhigay cod karnima halka ku dhigay ina adeer macaan wallahi libin baa joogta dhacaya baati kala soo qaadana baati weyn waa soo noqonaya because ina adeer baati weyn baa soo qaadana soo qaad sidaad kale ku qurux badnayd laakiin ilaa ilaa iska jirtay iska soo qaado wallahi qofta dhoo xamdi in adeeray kufsigaaga wallahi billahi tallahi waa iga jidan kabtaadu nooma gashay in adeer wallahi billahi iskoor baa jabsatay waayo sababtu intaas life cid ma saarnaan karta moogta qoftii waa is dhiibtay horta iyadoo is soo dhiibi rabtaan ka soo baxay markii dambe soo isma soo wada dhiibin walaalay qofka bilaadanka markuu hadlaya waxa loo baahan yahay dadka hoosta jooga waa inay adigo markuu qofku ku taageersan yahay waa markaad adigu aad matalaysid bulsho dhan oo Soomaaliyeed baa la rabaa inaad wax u sheegtid runtiina aad cadeysid wax kasto cadeyna markan anigu ku keenay waa la arkay kooniska markay weyday markii hore cid wax u diray ay weyday giftiye midgaane gifti baa hartaa ku giftiga laftigiisa kugu qaatay ha giftiga laftigiisa kugu qaataa waa wax waa la isiya Soomaalina baaldigu way wada sidataa iyagaaba isiya ka gudub markan wax cid siisa weyday hotayadii baa is cumaamaday
يدي اسكو درتay arkay wallahi wada kasta waa ka soo xirtay wada kasta war jookare kii hore ku qurux badnid in adeeray jookare in adeeray campaign baa ku jirnaa ma garatay heesii ma dart heesta noogu celi please heesta waxa noogu celisaa dani way xamdi ama xarbiinay hamdu aad iyo aad dadka dadku waxa weeye inaan la soo qabto oo dadka chance siino marba in aad leefkii maanta qofkasta soo qabanaysid Naciimo sidii maanta dhacay ka warrama celinaya oo boqolkiiba ma laba eray weydii maanta meekiga ay ka warrama kufsigiina ay ka warrama sidee maxaad dareemaysaa iyaduna wayna daawanaysaa videoga soo dhigtay Soomaali Maxamed ani iima kala harin runtay ka hadleen Soomaali waa hadashay commentiga Soomaali way hadashay qof walba wuxuu soo qoray beenta iska daa codka Naciimo maahe